السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan filayaa dhammaantiin inaad wanaagsantihiin. Halkan waxaynu ku duubi doonaa aynu ku arki doonaa cashar yar oo ku saabsan koorskeena Django. Django ama Django framework sidiisa waxaanu nidhaahnaa waa framework ama waa framework ay iska leedahay qolada Python ama Python programming framework ku dhisan kaasoo loo isticmaalo waxa loo isticmaalaa web development-ga ama web application development in softwares ama applications aynu ku dhisi karno aynu isticmaali karnaa. Marka designka ama architecture-ka isticmaasho Django waxaanu nidhaahnaa MVT design wax la yiraahdo isticmaasha. Marka Django framework uses waxa isticmaala waxaan nidhaahno MVT design. MVT design-ka ama architecture-ka sidana qaab dhismeedkana waxa la yiraahdaa inta sideeda waxaan nidhaahnaa waa models-kana sidoodaba waxaanu naqaanaa database files. Marka kuwan waxay noo kaydin doonaa failasha database-ka ay noo kaydiyaan iyo tables-ka iyo waxyaabaha la midka ay noo hayaan. Waxa jira qayb kale oo la yiraahdo views-ka iyaga waxaan nidhaahnaa waa functions-ka waa ficilada dhacaya. sida tusaale ahaan in wax la save gareeyo, in wax la update gareeyo, in la delete gareeyo, in page la soo akhriyo. Sidoo kale waxay noo jira file aynu nidhaahno templates-ka iyaga waxaan nidhaahdaa waa HTML files-ka ama failasha inoo ogol inaynu wax display garayno oo aynu soo bandhigno. Django markaynu baranayno haddaba waxaynu isticmaali doonaa tools ayaynu isticmaali doonaa ama sideeda waxaan isticmaali doonaa commands kelmado aynu ku isticmaali doono terminalka. Marka software-kan isticmaali doono halka waxaan isticmaali doonaa Windows terminal software-ka la yiraahdo ayaynu isticmaalaynaa si aynu commands u qorano. Windows terminal-keena basic commands-keenu ku isticmaali doono. Marka command-nada basic-ga course-kan aynu ku isticmaali doono waxa kamid ah haddaydan xasuusan waxa kamid ah ls aynu isticmaalo tusaale ahaan oo kale list files markaynu doonayno in failasha meesha ka jira aynu ogaano. waxa kamid ah tusaale ahaan oo kale mkdir aynu isticmaalo markaynu doonayno new folder inaynu create gareysano ayaynu isticmaalnaa. waxa kamid ah tusaale ahaan oo kale markaynu doonayno file ama directory inaynu galno waxaynu isticmaalnaa cd oo la yiraahdo change directory ama meesha naga bedel ayaynu iyadana isticmaalnaa. marka cd waxaynu isticmaalnaa open folder markaynu doonayno to open folder ama directory markaynu doonayno inaynu furno. waxa kamid ah commands-ka basic ee isticmaal doono clear oo ujeedadeedu ahayd masax. sidoo kale mararka qaarkood waxaan isticmaali karnaa option-ka la yiraahdo control plus l oo la yiraahdo last ama halka dambe ina keeni doonta. bal aynu bilaabanay waxaanu ka bilaaban doonaa software-ka terminal la yiraahdo soo furtay. marka qofka hadii operating system-ka ku jira computer-kiisu yahay Windows 11 si automatic ugu jira. laakiin hadii aad isticmaalaysid operating system aan 11 hayn sida 10 iyo operating system-yada waxa tagi doontaa store-ka. marka Microsoft Store-ka la tagaa. store-ka waa dukaanka yar halkan yaala wuxuu dhigmaa sida Play Store iyo App Store. marka gudihiisa marka timaadid waxaad ku qori doontaa software-ka aad u baahan tahay ee la yiraahdo maxay Windows terminal ayaad ku shubi doontaa halkaas aad ka install garaynaysaa. markaa kadibna open bay noqon doonaa. hadda hadii terminal-keena ay soo galno oo nidhaahno software-ka terminal la yiraahdo naloo furo sida caadiga wuxuu nooga soo furaa computer-keena ama qaybta sida la yiraahdo isagoo nooga soo furi doona user-keena isticmaalayno. sample ani user-kayga aan isticmaalayo waxa la yiraahdo tusaale ahaan jasiiro suuq ayaa igu qoran. marka hadda wuxuu ka soo kacay tusaale ahaan isla user-kaygu ka soo kacay. intan hadduu inoo qabtay waxaan oran doonaa kelmadda ls baan isticmaal doonaa si aynu ogaano failasha ama folderska meeshan ka abuuran. ls haddaynu isticmaalay wuxuu inoo sheegay in intana folder meeshan ka abuuran tahay. marka folderka desktop-kan u socdaa tusaale ahaan waxaan oran doonaa cd desktop-ige. marka directory-gayga hadda wuxuu bedeli doonaa desktop ayaan joogaa. si aan halkan iskaga masaxo control plus l baan oran karaa halka ugu hooseysaan jooga oo macnaheedu waxay tahay file-kaygii lama masaxin.
oo kor haddaan u socdo waxaad arkaysaan faylashaydi way sarreeyaan control plus l baan qabtay laakiin haddaan doonayo meesha inaan masaxo waxaan isticmaali doonaa commandka la yidhaahdo clear baynu isticmaalnaa intan haddaynu qabanay folder cusub si aynu samaysano waxaanu qori doonaa mkdir kadibna waxaanu sheegi doonaa folderkeena magaciisa marka folderkeena tusaale ahaan oo kale waxaan odhan doonaa let's say project baan odhan doonaa saasaan ula bixi doonaa ama projects baan samaysan doonaa folder guud oo la yidhaahdo kadibna gudihiisa si aan u galo waxaan odhan doonaa cd pro marka intaa haddaan qoro waxaan taaban karaa calaamada la yidhaahdo tab ee ka sarreysa inta badan caps loga ayaan taaban karaa marka magaca isaga inoo dhamaystiraya tab haddaynu taabano haddii kalena waxaynu qori karnaa folderkeena isla magaciisa baynu qori karnaayo waxaan leenahay maxay projects nage intan markaynu samayno haddaynu doonayno inaynu dib u noqono waxaan isticmaalaa cd space iyo laba dhibcood labadan dhibcood dhibic waxay u taagan tahay isla folderkan aynu gudihiisa ku jirno halka dhibicda kale uga taagan tahay in hal tallaabo aynu dib u baxno marka dib haddaan u baxo desktop aan joogaa locationkii markii hore aan joogay wuxuu ahaa projects laakiin hadda waxaan dib ugu noqday desktop haddaan doonayo dib inaan usoo noqdana isla halkayga hore aan kusoo noqon doonaa waxaan odhan doonaa projects hadda waxaan joogaa markaa folderkayga la yidhaha maxay projects baan joogaa shaqada ugu horeeyaan qabanaa waxaa la yidhaahdaa waxaanu diyaarsanaa waxaynu naqaano virtual environment wax kale maaha inta badan waxaan isla naqaanaa markaynu joogo goobaha waxbarashada waxay leeyihiin wax la yidhaahdo lab ama librariyay leeyihiin librariyada ama laabiska kala duwan ee meesha ku jira librariga inta badan inaan wax ku akhrisanay ugu talagalnaa laabiska waxaan ugu talagalnaa in tijaabooyin lagu sameeyo ama wax lagu practice garayo marka Django framework ama Django framework wuxuu noo ogol yahay in computerkeena halkaynu softwareska kaga wada shubi lahayn in aynu computerkeena ka samaysano qayb virtual environment ama deegaan aynu wax ku tijaabin karno oo aynu softwarekeena ka abuuri karno marka python -m baan isticmaali doonaa kadibna waxaan odhan doonaa waxaan u baahanay vmv virtual environment waxaan u baahanay computer kale oo computerkayga ku guda jira ama environment aan wax ku samayn karo taasi oo saameyn ku yeelanayn computerkayga ayaan leeyahay vmv markaan yeerno tusaale ahaan waxaan ula bixi doonaa mailab baan odhan doonaayo virtual environment-gan wuxuu noqon doonaa waan idhi laabkayga aan isticmaalayo marka computerkeena aynu joognaa gaar ahaan desktopka gaar ahaan folderkeena abuuranaynu u bixinay projects hadda waxaa laynooga gudaa abuuri doonaa ama gudihiisa waxay noogu soo biiri doonaa folder la yidhaahdo mailabo haddii ls aynu isticmaalno waxaan arkaynaa inuu inoo jiro folder la yidhaahdo mailab marka mailab gudihiisa waxaa ku jira inta badan folder aynu idhaahno scriptskana gudaheeda waxaa ku jira file la yidhaha activate si aynu fiilkeena u activate garayno ama laabkeena aynu ka dhigno mid shaqayn doona waxaan leenahay scriptska waxaad samayn doontaa activate baad samaynaysaa oo failkayagan mid active aad nooga dhigi doontaa active markaynu ka dhigano hadda wuxuu inoo shaqayn doonaa in failkeenii halkan hore waxay nagu soo biirtay in mailab aynu ku guda jirno oo aynu soo galnay qolkeenii laabka ama deegaankeena aynu ku talagalnay inaynu wax ku tasti garayno ama mashaariicda ama projectska aynu ku dhisno intan haddaynu qabanay waxaan noqon doonaa hadda laabkeenu waa inoo diyaarsan yahay waxaynu isticmaalnay haddaad arkaysaan commandka la yidhaahdo waxaan sheegnay folderkayga magaciisa la yidhaha mailab kadibna waxaan sheegay folder kaloo gudihiisa ku jiro la yidhaha scripts kadibna waxaan noqon doonaa failkayagan mid active baynu ka dhigaynaa ama shaqaynaya intan haddaynu qabanay waxaynu leenahay waxaan u baahanay hadda inaynu abuurano project cusub inaynu abuurno ayaynu u baahanay laakiin si aynaan project u abuuran marka hore waxaan odhan doonaa computerkeen wuxuu u baahan yahay in Django lagu shubo si aynu ugu shubno waxaan odhan doonaa pip install computerkayga waxaad ku shubi doontaa Django baad ku shubaysaa marka Djangadan hadda waxaa lagu shubi doonaa un kaliyaata virtual environment-geena deegaankeena inaynu ku jirno ee mailab la yidhaahdo laabka gudihiisa folderkan gudihiisa ayuunbay ka jiri doontaa Djangadan ama frameworkan ama applicationkani uu ka jirayaa ee si guud computerkeena uguma jiro laakiin isla halkan ayuunbay nooga jiraa ayaynu leenahay intaan haddaynu eegno waxaan leenahay failkan ayuu inta badan inoo soo download gareeyaa markuu downloadku inoo dhammaado ee failka lainoo soo dejiyo waxaan isku dayi doonaa inaynu ogaano failkeena versionkiisa marka intan stabiskan markaynu soo qaadnay waxaynu samaynay waxaynu nidhaahno stabtaynu qaadnay waxa weeye waxaynu isku daynay in marka hore aynu samaynay virtual environment iyo
waxaynu nidhi horta terminalkaynu soo furnay marka open terminal markaynu sameynay stepskeenu sidan ahaayeen qofku terminalku soo furtay terminalkaaga marka soo furatay tusaale ahaan waxaan imid anigu computerkayga qaybta desktopka waxaan idhi waxaad sameysaa cd desktopkaygii marka la keenay kadibna waxaan u baahanay in folder cusub la sameeyo make directory baan idhi ama mkdir kadibna folderkeena waxaan ula baxay projects baan ula baxay saasaan ula baxay kadibna folderkayga si aan usoo galo waxaan idhi waxaad sameysaa cd projectskayga hadda projectskayga markaan imaado waxaan idhi mar kale waxaan u baahanay virtual environment inaan sameysto waxaan u yeedhay python kadibna -m waxaan idhi vmv baad noo sameyn doontaa ama virtual environmentgeena waxaan ula baxay tusaale ahaan maylab laabkayga si aan active uga dhigo waxaan isticmaalay maylab baan idhi oo ahaa magacii laabkayga aan u bixiyey gaar ahaan waxaan idhi folderka ku guda jiro scriptska la yidhaahdo waxaa lagu sameyn doonaa maxay activate mid active oo shaqeynaya baynu ka dhigaynaa intan markaynu sameynay stabta 7 qaadnay waxaanu nidhi waxaan u baahanay inaynu Django install garaysano si aynu install garayno waxaan isticmaali doonaa python -m kadibna waxaan nidhi pip baanu isticmaalnaayo install waxaan odhan doonaa waxaad noogu shubaysaa computerkayga Django baad noogu shubaysaa pip waxaynu naqaanaa python installer package baa la yidhaahdaayo waa application inoo ogolaanaya in faylasha internetka ku jira aynu la soo degno marka inta badan luqadaha programming ee libraries kale ama frameworks kale frameworkyadooda waxay ku kaydiyaan application ama waxay ku kaydiyaan website ama library bay ku kaydiyaanoo meeshay Python wax ku kaydisabay waxaynu naqaanaa pip baa la yidhaahdaa waa Python installer package ayaan leenahay intan haddaynu qabanay stepta 8aad waxaynu ogaan doonaa versionka si aynu versionkeenu u ogaano waxaynu odhan doonaa Django admin waxaan u baahanay space 2 version baynu qori doonaa kadibna waxaynu heli doonaa versionka softwarekeena stepteena 9aad waxaan ku baran doonaa inaynu project cusub abuurno si aynu abuurno iyadana waxaan odhan doonaa Django admin iyadana waxaan u baahanay start project baad noo abuuri doontaa projectigeena kadib waxaan sheegi doonaa magaciisa tusaale ahaan waxaan iska isticmaali doonaa magaca la yidhaahdo university intan haddaan eego installationkaygu u dhamaaday clear baan odhan doonaa kadibna waxaan idhi tusaale ahaan oo kale Django -admin waxaan u baahanay shaqadan uga baahanay waxay tahay 2 space 2 iyo version maynu nidhiyo waxaan doonaynaa inaynu ogaano versionka softwarekeena hadda wuxuu inoo sheegay versionka igu jira inuu yahay tusaale ahaan oo kale 5.2.8 buu ii sheegay intan hadduu ii sheegay waxaan leeyahay intan hadduu inoo sheegay waxaanu leenahay commandka inoogu xigaynu baran doonaa waxa weeye inaynu project abuurno si aynu project u abuurno waxaynu qori doonaa kelmadda la yidhaahdo Django admin baynu odhan doonaa kadibna waxaan odhan doonaa start waxaad noo abuuri doontaa projectigaygan waxaad noogu bixisaa university marka projectgayga waxaan rabaa in laga guda abuuro isla folderkeena la yidhaahdo projects baa laga dhex abuuri doonaayo space dot baan leeyahay marka space dot haddaan isticmaalay macnaheedu waxay tahay isla folderkan gudihiisa ayaad waxaad ka dhex abuuri doontaa project la yidhaahdo university baad ka abuuraysaa marka hadda wuxuu inoo abuuri doonaa project la yidhaahdo university buu inoo abuurayaayo haddayn doonayno inaynu ogaano faylasha meesha ka jira waxaan isticmaali karnaa kelmadda la yidhaahdo ls haddaan isticmaalo l iyo s haddaan isticmaalo wuxuu soo saaray inuu ii jiro maylab oo ahaa laybkaygii ama environmentigayga ama virtual environmentgeeni iyo university folder la yidhaahdo gudaha ku jira iyo file aynu idhaahno maxay manage.py failkeenan manage la yidhaahdaa wuxuu noqon doonaa failka maamulaya systemkeena ama projectgeena oo dhan failka maamulaya aynu wax ka manage gareynana buu noqonaya marka manage kelmadan sida ku cadba maadaama ay tahay maamul isaga ayaynu u isticmaali doonaa in systemkeena aynu ku maamulno kelmadaynu soo qornay haddaynu xasuusano sidan ay ahayd waxaynu nidhi si aynu project u abuurno waxaad noo abuuri doontaa project na idhaa maxay university adoo nooga abuuri doona gudaha systemkayagan isla laftarkiisa intan haddaynu sameynay waxaynu ku xigsiin doonaa commandka igu xigaa wuxuu noqon doonaa in faylashan bal aan wax ka bedelo marka ugu horeysa waxaan isku dayi doonaa Python baan u yeedhi doonaa kadibna waxaan odhan doonaa failka manage.py faylasheeda horta waxaad ka dhigtaa kuwa update ka dhig baan odhan doonaayo migrate migrate waxaynu isticmaalnaa markaynu faylasheena doonayno in la update gareeyo
hadda haddaynu wada arkayno fiilasheeni oo dhan xaaladoodii wuxuu ka dhigay mid okaya way intan haddaynu aragnay migrate waxaan odhan doonaa kobaan kale aynu ku baran doonaayo mar kale waxaan ka dambaysiin doonaa in manage.py waxaad ii abuurtaa systemkayga user aan ku isticmaalo Django waxay leedahay haddaynu xasuusano ama Django waxay leedahay si guud haddaad taqaanaan qayb la yiraahdo admin panel wuxuu inoo ogol yahay in qofka systemka maamulaya qaybtu ka administrate gareyn lahaa ama uu ka maamul lahaa database-ka ama website-ka waxa la soo gelinayo oo dhan hadduu doonayo inuu wax ka saaran uu ka saari lahaa ayaynu waxaan u naqaanaa admin panel marka isagoo diyaarsan bay leedahay Django kaliya waxay naga rabtaa inaynu username iyo password samaysano userkayga admin baan ka dhigtay emailkana inter baan ku dhaafi doonaa passwordka 123 mar labaadna 123 baan dhigay kadibna waxa la inoo sheegayaa security-ga iyadoo Django aad awood u saarta waxaana leedahay passwordkan uu kooban yahay sababtuna waxay tahay waxa loogu talagalay passwordka inuu ka koobnaado 8 character way characters waxaan u naqaanaa sideedaba 8 shay oo isku jira sida numbers xuruuf iyo calaamado ayayna nahana waa characters way sidoo kale waxay noo sheegayaan passwordkan aynu isticmaalayna inuu yahay too common mid caana oo dadku dhan tijaabin karaan sidoo kale waxay noo sheegayaa in passwordkan uu gebi ahaanba ka kooban yahay tiro marka waxayna leeyihiin passwordkani ma hadda mid u fiican security-ga systemkaaga laakiin maadaama inuu tasti ahaan u isticmaalno waan ku qanacsanay baan odhan doonaa way baan inoo taabanaya intan haddaynu samayno fiilkeena si aynu u rangarayno waxaan odhan doonaa waxaad isticmaashaa kelmadda la yidhaha maxay run server marka si aan marna kor ugu noqdo marna hoos ugu socdo waxaan isticmaalayaa jooyinka yar ee keyboardkeena inoogu yaala ee kor iyo hoos leh iyo bidix iyo midig baan isticmaalayaa marka hadda waxaan leeyahay run server baan odhan doonaa serverkeena markuu inoo rangaroobo waxaan taaban doonaa calaamadda control la yidhaha anigoo haya ayaan mouse-kayga waxaan kili garaynayaa qaybtan ay ku qoran tahay 127 way 127 hadda haddaynu gujino browserkaad isticmaalaysaa wuxuu kuu soo saari doonaa fariintaada systemkaaga ku jirta buu kuu soo saarayaa marka browserku wuxuu soo akhriyi doonaa fariinta inoogu jirta systemkeena ee aynu doonaynay in la inoo soo daabaco hadda fariintiina soo gaadhay haddaynu arkayno waxay inoo sheegaysaa in installationka ama ku shubiddu ay shaqaynayso qaybta yare sare halkan sare xogtan taala sideeda waxaan u naqaanaa local host 127 kan haddaad aragtaan waxaa loo yaqaanaa sidiisaba local host baynu nidhaahnaa oo xogtan maadaama ku kaydsan tahay computerkeena waa local hostina uu samaynayaa dheetidii ama website-kii inoo haya marka intan haddaan ku qoro intanay u dhigantaa sidoo kale haddaan doonayo qaybtii username-kii passwordka inaan galo waxaynu isticmaalnaa halka sare /admin baynu isticmaalnaa haddaynu halka sare admin ku qorno waxayna weydiin doonaa username-kii iyo passwordkiio userkayga war admin buu ahaa isla passwordkiisuna waxa ahaa tusaale ahaan 1 2 3 kadibna waxaan leenahay maxay login samee marka administration wuxuuna geenayaa page-keeni qaybta hore uu geeyay halka waxaynu ka bedeli karnaa colorska oo habeen ayaan doorbidayaa inaan isticmaalo si shaashadayda ay u madawaato systemku sidan u ahaado way intan haddaynu tasti gareynay waxaanu baran doonaa stepteena inoogu xigtaa habka systemkeena tusaale ahaan aynu ugu soo kordhin lahayn qayb application la yidhaahdo application si aan usoo kordhiyo waxaan tegi doonaa hadda fariintu isoo daabacaya haddaad arkaysaan ama systemkayga isoo daabacaya waa in systemkayga installationkiisu uu yahay mid shaqaynaya way terminalkeeni baynu ku laaban doonaa kadibna waxaan odhan doonaa shaqadan jooji si aynu joojino waxaanu taaban doonaa control basi kadibna waxaan odhan doonaa si guud waxaad samaysaa clear baad noo samaynaysaa waad noo masaxaysaa mar haddaynu clear garaynay waxaan odhan doonaa mar kale manage.py baan u yeedhi doonaayo hadda waxaan odhan doonaa start waxaad ii dhisaysaa appkaygana tusaale ahaan oo kale waxaad ii samaysaa jaamacad la yidhaha ABC sample oo kale marka magaca jaamacadayda aniga ABC baa la yidhaahdaa laakiin projectiga waxaa la yidhaahdaa waa magaca mashruuca guudeed ka hadlaysid oo systemkeena waxaan idhi tusaale ahaan oo kale university buu maamuli doonaa isla university-ga magaciisana waxaan idhaahdaa ABC baan sample soo qaatay marka markayn doonayno inaynu qorno habkanaynu qori doonaa waxaan odhan doonaa python space manage.py waxaan u baahanay waxaad noo samaysaa jaamacad magaceeda tusaale ahaan la yidhaahdo ABC noo samee inter baan idhi kadibna wuxuu ii samayn doonaa application ayuu inoo abuurayaa halkan si aynu VS Code ugu furno
waxaynu qori doonaa code space iyo dot baynu qoranaynaa. dot markasta waxa uu taagantahay locationkan aan joogo. marka waxaan rabaa systemkaygu in Visual Studio Code-kaygu halkan uu igu furo isla VS Code-kii ayaynu baahanay. marka code space dot maadaama isticmaalay wuxuu noo soo furi doonaa software-ka la yiraahdo maxay Visual Studio Code buu noo soo furaya. code-keenin wax yar sugaynaa markaa. Copilot hadda isticmaali mayno laakiin in future waynu isticmaali si code-keena iyo waxyaabo badan ay noogu fudaydiyaan ee aygu, laakiin first stepka banaankan ka joogi. shaqada ugu horeysa qaban doonaa halkan haddaynu arkayno waxaan haysanaa application la yidhaha ABC iyo failkeeni ahaa Maylab oo ahaa virtual environment-geena. sidoo kale waxaan haysanaa project-geena la yidhaha maxay university-ga tegi doonaa marka ugu horeysa. markaynu tagnana waxaynu ka tegi doonaa file halkan inoogu jiro la yidhaha settings.py. settingska markaan tago hoos baan socon doonaa, kadibna waxaan tegi doonaa line-ka 9 baan tegi doonaa. qaybtan waxaa la yidhaahdaa installed apps, waxaana lagu qeexaa applicationada systemkaaga la shaqeynaya. marka anu markii dhaweyd waxaynu abuurnay application la yidhaha ABC o halkan waxaynu ku sheegi doonaa isla magaca applicationkeena. waxaan odhan doonaa tusaale ahaan waxaanu isticmaalaynaa abka la yidhaahdo ABC baynu sheegaynaa. intan haddaynu sheegno stepteena labaad waxaynu odhan doonaa waxaan u baahannahay qaybtan ka hooseysaan tegi doonaayo URLs baan leeyahay. inta waxaan imi settingska, kadibna waxaan tegay line-ka 9 enter baan iyo meel bannaan baan samaystay. kadibna single quotes anigoo isticmaalaya ayaan halkan waxaan uga yeedhay application-keena la yidhaha maxay ABC ayaynu u yeedhnay. intan haddaynu qabanay shaqada ku xigtaynu qaban doonaa waxay noqon doontaa failkan URLska la yidhaahdo ee ka hooseeya ayaan tegaya. URL-ka waxaynu nidhaahnaa sidiisaba waa failka isku xidha application-ka iyo project-ga. marka afartan line ee ugu dambeeya ka bilaabma 17 ilaa 22 ayaan highlight saartay, kadibna waan copy markaan ku sameeyo waxaan tegi doonaa qaybteeda la yidhaahdo ABC ee application-kayga ahayd. kadibna waxaan soo kordhin doonaa file cusub. failka waxaan odhan doonaa URLs baad noogu bixin doontaa Python file uu noqonaya. failkan wuxuu la magac yahay isla failkan aan koodhka ka soo qaadanayo ee ka abuuran university-ga. kan iyo waxa isku magaca isla kan kale ee xogtaynu ka soo qaadanayno ee settingska ka hooseeya. kan haddaynu markaa eegnay kii kale aan bal ku noqon doonaa ee settingska ka hooseeye ka abuurnaa gudaha project-geena. waxaan odhan doonaa halkan marka ugu horeysa comma, kadibna waxaynu sheegnaa failkan waxaynu idhaahnaa include file buu la shaqeynayaa. failku la shaqeynaya si aynu sheegnana waxaan odhan doonaa include. markaynu sheegno line-kan kale sheegi doonaayo waxaan odhan doonaa failkan uu la shaqeynayaa. si aynu sheegno waxaan odhan doonaa path, dariiqu maraya waxay noqon doontaa tusaale ahaan page-ka halka ugu horeeya kasoo muuqan doona ama page-ka ugu horeeya soo muuqdo noqon doona application-kani. kadibna waxaan odhan doonaa include wuxuu la shaqeyn doonaa tusaale ahaan application-keena la yidhaahdo ABC, gaar ahaan failkiisa aynu imika usoo sameynay la yidhaahdo maxay URLska. marka hadda waxaynu isku xidhnay labadan fail isdacal yaallo. waxaynu nidhi project-gayga la yidhaha university wuxuu la shaqeyn doonaa application-kayga la yidhaha maxay ABC, iyagoo iskaga xidhnaan doona ama iyagoo xidhiidh ka wadaagi doona ka wada shaqeyn doona qaybta la yidhaha maxay URLs.py. hadda labadeena URL way noo wada shaqeynayaan. steptii noogu xigteen qaadi doonaa waxay noqon doontaa kan waan ka dhamaaday university waan iska laabi doonaa. waxaan tegi doonaa qaybta la yidhaha ABC. waxaan nidhi Django waxay isticmaashaa aragti la yidhaahdo MVTO, waxay isticmaashaa models, views iyo templates. hadda maadaama inaan templates haysan waxaan soo kordhin doonaa folder la yidhaahdo templates. templatesku wuxuu yahayn doonaa faylasha HTML-ka. sample waxaan samaysan doonaa tusaale ahaan folder ama file yar oon u bixiyo index.html. waxaan samaystay folder la yidhaahdo templates. gudaha template-kan waxaynu ku sameynay file aynu la baxnay index.html. kadibna halkan waxaan taaban karnaa shift iyo war calaamatul cajiib. markay noo soo baxdana HTML koodhkan
ayaynu isticmaali karnaa. way koodhkeenan html-ka halka waxaanu tusaale ahaan oo kale h1 baad noo samayn doontaa waxaanada tiraahdaa welcome to mayn odhan doonaa waxaad kusoo dhawaataa tusaale ahaan abc application bayn odhan doonaa. fariintan ayay waxaan doonaynaa fariintii hore inoo soo bixi jirtay inay inoo bedasho ama ta inoo muuqanaysaa ay tan noqoto. way tan haddaynu garanay shaqada ku xigteen qaban doonaa waxay noqon doontaa in degaskeena si fariintiisa loo soo akhriyo waxaan u baahanay function ama viewska inaan imaado oon sameeyo function wax soo akhriyaya. si function u abuurno dhif baynu sheegnaa kadibna waxaan functionkeena tusaale ahaan home inoogu bixiyey magaca functionkayga home baa la yidhaahdaa kadibna tusaale ahaan waxaan idhi codsi buu dirayaa functionkan shaqadiisu waxay tahay return buu samayn doonaa wax buu soo celinayaa markuu wax soo celiyana wuxuu samayn doonaa wixii uu soo celiyay uu soo akhriyi doonaa ama rendering buu samaynayaa wixii soo akhriyi doonaa markaa codsigayga isagoo kasoo akhriyi doona faylka la yidhaha maxay index.html hal baaraamitir baynu samaynay baaraamitirkan waxa weeye functionkan shaqadu qabanayo oo ahaa inuu codsi dirayo codsigu inoo dirayaana wax kala maahee waa inuu inoo soo akhriyo maxay faylkeena nidhaahno index.html. way faylkeena haddaba si aynu soo akhrino viewskeena waxaan samaysanay ka dhex samaynay function la yidhaha home baynu samaynay functionkana wuxuu soo akhriyayaa baynu nidhi pageka la yidhaha maxay index.html. haddaba si aynu sheegno pageku halku kasoo muuqanayo waxaan tegi doonaa viewska faylka ka sarreeya la yidhaha maxay urlska ee markii dhaweyd aan samaynay kadibna waxaan odhan doonaa from waxaad wax nooga keeni doontaa qaybta la yidhaha viewska adigoo noo keenaya noo soo dejinaya functionkii magaciisii aynu abuurnay ahaa maxay home. kan waa magacii functionkayga aan markii dhaweyd soo samaystay functionkeynana waxaynu ku samaynay qaybta la yidhaha maxay viewska marka waynu soo import garaynay ama waynu soo jiidanayo waxaan u yeedhnay functionkeena. mar labaad waxaan odhan doonaa path noo samee pagekan wuxuu noqon doonaa pageka ugu horreeya systemka iyagu markuu soo kaca functionka lasoo akhriyayaana waa home magacaan ku aqoonsan doona hadhow haddaan isdhaahno u yeedhan wuxuu noqon doonaa isla home bayn leenahay. intan haddaynu sameynay systemkeenaynu ku noqon doonaa kadibna python manage.py waxaan odhan doonaa waxaad samayn doontaa run serverkaad noo soo kicinaysaa. hadda haddii serverkeena markaa laynoo soo kiciyo installationkeenu waa kan uu shaqaynayaa pagekayga haddii aan ku noqdon idhaa refresh sameyna cr waa kan wixii soo saaray fariina maxay welcome to alpha application. pages kadib baan haddaba samayn karnaayo haddayn doonayno tusaale ahaan page kale inaynu soo kordhino oo templateska aynu idhaahno page kale noogu daro tusaale ahaan la yidhaha about waxaan leenahay waxaad noo samaysaa file html ah oo la yidhaha about.html. about hadda markuu inoo sameeyo waxaynu isagana sidii oo kale html code yar baynu ku qorno waxaynu nidhi tusaale ahaan oo kale waxaad noo samaysaa fariin yar baad halkan noogu samayn doontaayo h1 baad noo samaysaa kadibna waxaad tidhaahdaa about page baynu odhan doonaa. about pagekeena isagana markaynu diyaarino isagana sidoo kale waxaynu samaynay tusaale ahaan halkan fariin yar baynu samaynay paragraph yar waxaynu nidhi qoraalkaad noo hayn doontaa looran buu noqon doonaa tusaale ahaan 2000 oo eray ayaan isticmaalay markaa qoraal yaroo badan buu noqon doonaa oo pageka oo dhan qabsada. fariintan si loo soo akhriyo iyadana waxaan u baahanay sidii tii hore function lamid ah marka mar labaadba waxaan abuuri doonaa function kaleo waxaan odhan doonaa waxaad noo samaystaa function la yidhaha about isaguna sidii kii hore wuxuu dirayaa codsiga markuu inoo dirana shaqadu qaban doonaa waxay noqonaysaa return buu samayn doonaa waxbuu soo celinayaa markuu wax soo celiyana wuxuu samaynayaa render akhrin buu samayn doonaa wuxuu inoo soo akhriyi doonaa codsigeenuna wax kale maaha waa inaynu soo akhrino pagekaynu bixinay about.html. intan haddaynu samayno isla sidii kii hore aan mari doonaayo waxaan sheegi doonaa urlkiisa wadada uu marayo waxaan odhan doonaa kan hore home haddaynu u yeedhnay coma mar labaad waxaad nooga yeedhisaa bayn leenahay functionka la yidhaha aboutka ka abuuran maxay isla viewska kadibna halkana comaynu dhexaysiin doonaayo isagana waxaan odhan doonaa path kan wadada uu mari doonaa waxay noqon doontaa kii hore kasoo baxayay pageka ugu horreeyay kan wuxuu kusoo bixi doonaa markuu qoraba qofku /about marka functionka magacan inoo soo akhriyayana waxaynu idhahnaa tusaale ahaan oo kale about magacaynu ku aqoonsanaynana sample waxaynu u bixinay about ayaynu u bixinay. intan haddaynu samayno aynu nidhaahno bal tusaale ahaan pagekeeni waa kane markii dhaweyd halkan 8,000 bay joognay haddaynu nidhaahno pageka about la yidhaahdana geeya wuxuu noo soo akhriyi doonaa xogta ku qoran maxay isla pagekeena la yidhaha maxay
about me noo soo akhriyaya way inta waxaanu nidhaahnaa waa functionist noo ogolaanaya inay noo soo bandhigaan xogteena ku jirta maxay baysaskeena kala duwan aynu isticmaalayno systemkeena markaa waxaynu samayn karnaa haddaynu u baahannahay navbar wax la yidhaahdo aynu samaynaa navbarka si aynu samayno inta badan bootstrap aynu isticmaali doonaa waxaynu isticmaali karnaa shayadii aynu odhan jirnay listiskii iyo waxyaabihii marka pagekeena waxaad inoogu soo dari doontaan shaqadaydu ku qaban doontaa waxay noqon doontaa inaad navbar inoogu soo dartaan halkan commandiskiini horta haddaan idin sii tuso waxay ahaayeen project bayn samaynay la yidhaha maxay university space dot baynu nidhi kadibna failasheenii haddaynu xasuusanno waxaynu ku samaynay maxay inagii update garaynayo waxaynu ku samaynay manage py waxaan u baahanay migrate baynu u baahanay migrate markaynu samaynay shaqadii ka dambeysay waxay ahayd in failashaynu super user samaysano waxaynu isagana maxaynu nidhi create waxaad noo abuuri doontaa maxay super user baynu nidhi userkii markaynu abuurnay systemkeeni waxaynu ku samaynay stabta 12aad waxay ahayd inaynu run garayno marka python baynu yeedhnay gaar ahaan failka manage.py la yidhaha waxaynu nidhi waxaad samaynaysaa maxay run server kadibna serverkeena si aynu istaajinay waxaan isticmaali jirnay control plus maxay c baan isla qaban jirnay iyadana intan haddaynu xasuusanno wixii nooga dambeeyey wuxuu ahaa inaynu application samayno si aynu abuurnana waxaynu u yeedhnay python kadibna failka la yidhaha maxay manage.py kadibna waxaynu nidhi start waxaad noo abuuri doontaa application abkeenana abc baan u bixiyey stepteena 15aad waxay ahayd code inaynu ku furano vs code code space dot baynu nidhi kadibna codekeenaynu edit garaynay inagoo steps ka kala duwan marayna oo tijaabinayna marka intan idinka soo gaarsiin insha allah weekan aynu noo soo dhamaystiri doontaan assalaamu calaykum